asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janalka mar kale soo dhowaada aad iyo aad oo mahadsantihiin muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago madaxweyne Trump ayaa shacabka Mareykanka iyo caalamkaba bartiisa True Socialka ugu xaqiijiyey in la soo badbaadiyay asduuliyihii labaad ee diyaaradii F-15 ee Iran jimcihii ay ku soo riday galbeedka wadankaasi Iran haddaba dagaal faraha looga gubtay ayaa dowladda Iran iyo ciidamadii Mareykanka ee askarigaasi soo badbaadinaya dhaxmaray Mareykanku laba diyaarad ayuu mar kale ka soo tagay waxay leeyihiin diyaaradahaasi meeshii ay ku dageen ayay ku xanibmeen inaga ayaa gubnay laakiin Iran waxay leedahay inaga ayaa soo ridnay haddaba madaxweyne Trump qoraalka dheer ee bartiisa True Socialka uu ku soo qoray waxyaabo cusub oo horay aan loo ogeyn ayuu sheegayaa sidoo kalena hadallo iskhilaafsan ayaa ka muuqanaya qoraalkiisu muxuu salka ku hayaa waan idinla wadaagayaa iyo sidoo kalena arrimaha kale ee dheeriga ee soo baxaya raba inaan muuqaalkan idinkula wadaago waxaan ogeyn in dowladda Mareykanku labadii maalmood ee soo dhaafay baadigoob xoogan ay ugu jirtay mid ka mid ah duuliyaashii labada ahaa ee waday diyaaradii F-15 ee Iran jimcihii ay ku soo riday galbeedka wadankaasi gaar ahaan Kazakhstan waxaana sidoo kalena Mareykanku uu dhinaciisa ay guuldarro uga dhignayd in askarigaasi isagoo nool ama isagoo meyd ah gacanta dowladda Iran uu galo Iran guul weyn ayay uga dhignayd in askarigaasi oo nool ama meyd ah ay gacanta ay ku dhigaan shacabku waa kuwii raadinayo dowladdu ay ballanqaad u samaysay dowladda Iranna waa tii raadinaysay Mareykankuna dhinaciisa ayuu ka raadinayay meel buuraley ah oo kaymo ah ayaana laga raadinayay xitaa waxaa la arkayay diyaaradaha Mareykanka oo xilliga habeenkii aan nalalkii inta ay dansadeen baadigoob samaynaya haddaba Trump aan hadalka uu ku soo qoray bartiisa True Socialka aan marka hore idinla wadaago kadibna waxyaabihii ka dambeeyay oo soo baxay ayaan idinla wadaagi doonaa Trump qoraalkiisa waxa uu ku bilaabay waxyaabo uusan horay ugu bilaabi jirin waxay arrintan ka socotaa ayuu yiri madaxweyne Donald J Trump qoraalkiisa waxa uu ku bilaabay we got him waan helnay ayuu qoraalkiisa uu ku bilaabay waxa uu leeyahay dadkayga Mareykanka ah maalmihii la soo dhaafay ama saacadihii la soo dhaafay dowladda Mareykanka iyo militarigeeduba waxa ay sameeyeen mid ka mid ah baaritaanadii iyo sidoo kale baadigoobkii ugu ballaarnaa taariikhda ciidamada Mareykanka waxa uu leeyahay howlgalkan baadigoobka ah iyo raadinta ah amaba soo badbaadinta ah horay ciidamada militariga ee Mareykanku maba aysan u samayninba waa kii ugu weynaa taariikhda ciidamada militariga Mareykanka ay sameeyaan waxa uu sheegay sidoo kale waxa ay raadinayeen mid ka mid ah ciidamadaasi oo ah sarkaal isla markaana waxa uu yahay sidoo kale Cornel aad loo qadariyo arrintan lama ogeyn waa la qarinay waxa la dhahayay markii hore duuliye ayaa la laayahay oo kaliya laakiin Trump hadda waxa uu sheegayaaba ninkan in uu Cornel yahay haddii marka Iran arrintaasi ogaan lahayd waxa macquul ah in baaritaanku intaasi Iran ciidamo fara badan ay halkaasi u soo diri lahayd laakiin Trump hadda waxa uu leeyahay ninkan Cornel ayuuba ahaa waliba si weyn loo qadariyo waxaana sidoo kalena uu sheegay waxaan aad ugu faraxsanahay uu yiri in aan hadda idinla wadaago in uu bad qabo isla markaana uu nool yahay waxaana uu sheegay geesigaasi ka tirsan ciidamada Mareykanka waxa uu ku sugnaa goob cadow isla markaana waliba meel buura ah oo waliba halis ah oo wadanka Iran ayuu ku sugnaa waxaana ugaarsanaya ayuu yiri cadowgeena laakiin waxa uu sidoo kale sheegay in inaguna mar kastaba aan u sii dhawaanayna saacadda ka dambaysa maxaa yeelay ayuu yiri taliyihiisa oo ah wasiirka dagaalka Pete Hegseth iyo taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka iyo sidoo kalena ciidamada kale ee dagaalyahanada ee Mareykanka waxa ay si toos ah ula socdeen halka uu ku sugnaa 24 saac ee la soo dhaafay macnaha madaxweyne Trump waxa uu leeyahay askarigan halka uu ku sugan yahay waan ogeyn laakiin macnaheedu maxay u dhigmaysaa way nagu adkaatay in aan goobtaasi ugu tagno oo aan ka soo badbaadino Trump waxa uu leeyahay askarigan locationka uu joogo duuliyahan waan ka warqabnay laakiin macnaheedu waxay u muuqataa ma aanan soo badbaadin karin meeshu waa buuraley waana kaymo shacabkii qoriyay qaateen Iranna dhinaceeda ay iyaduna ka baadigoobaysay marka ma doonaynin ciidamada kale inaan halis gelino ayaa madaxweyne Trump uu leeyahay markii dambe waxa uu leeyahay amar anigu aan bixiyay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada militariga waxa ay direen tiro oo ilaa iyo 12 ka badan dozen waa 12 ka badan ciidamada diyaaradaha dagaalka iyo sidoo kalena boqolaal ka mid ah ciidamada Mareykanka
kuwaasi oo wata hub aad u culus islamarkaana ay soo heleen duuliyihii sida uu xaqiijiyey Trump iyadoo weliba wax dhaawaca aysan ka dhalan. meeshan marka waxbaa ku jira. arrintan dagaal ayaa dhex maray kolay shacabkii amaba dowladdii Iiraan iyo ciidamadii Mareykanka ay doonayeen ninkan inay soo badbaadiyaan. taasina waxaad ku caddayn kartaa Trump meesha ma uusan ku sheegin in laba diyaaradood oo la leeyahay hadda nooca ay yihiin warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya. qaar waxay leeyihiin waa diyaaradaha helicopterska ee qumaatigu kaca ee Black Hawk meeshii ay ku degeen sida sawiradan aad ka aragtaan oo ah meel beeraley ah inay dhiiqa tahayna waa macquul ay diyaaradihii kici waayeen markii ay ku degeen. dowladda Mareykanku marka waxay leedahay si aysan gacanta dowladda Iiraan aysan u gelin innaga ayaa qarxinay. laakiin dowladda Iiraan war kale ayaa ka soo baxaya waxay leedahay innaga ayaa gantaana la helnay oo burburinay. sidaas darteed waxa ay sidoo kale dowladda Iiraan leedahay Trump waxa uu idin sheegay in askarigii la soo helay laakiin askartii kale diyaaradahaasi la burburiyay saarnaa iyaga dhaawac iyo dhimasho muxuu dadka ugu sheegi waayay. sidaas ayaa sidoo kale uu leeyahay. waxaa jirta sidoo kale askarigan inuu dhaawac halisa qabo oo la leeyahay in xaaladiisa la dejiyo ayay ahayd ka hor inta weliba aan diyaaradda la soo saarin. cabsi fara badanna sidoo kale waa ay jirtaa oo goob dagaal oo cadow ah ayuu askarigan uu ku sugan yahay sida madaxweyne Trump uu leeyahay. marka waxa uu sheegay in askarigaasi la soo badbaadiyay isagoo dhaawac qaba laakiin waa uu fiicnaan doonaa. waxa uu xaqiijiyey in baaritaankan iyo sidoo kale badbaadintan howlgalkan baaritaanka iyo badbaadinta ah uu ahaa mid guul ku dhammaaday islamarkaana geesigii duuliyaha ahaa gacanta lagu soo dhigay. waxaana uu sheegay maxaa sababta aan u sheegi waynay duuliyihii hore oo jimcihii aan soo qabanay waxa ay ahayd ayuu leeyahay ma aanan doonaynin inaan carqaladayno baadigoobka lagu hayo duuliyaha labaad sidaas darteed ayaan u qarinay. marka intan wixii ka dambeeya waa iska faankiisii wuxuu leeyahay marnaba kama soo tagayno geesi ka tirsan ciidamada Mareykanka goob cadow ugama soo tagayno. markan faankiisii ayuu iska galaya wuxuu leeyahay ciidamada ugu awooda badan ayaan haysanaa Iiraan hawadeeda sidaan rabnaan ugu raaxaysanayna. waa iska on hadalkiisii oo faanka ah ayuu qaybta dambe madaxweynuhu uu ku sheegaya. laakiin inta ugu muhiimsan waxa ay ahayd in askarigii aan soo badbaadin ayuu leeyahay isagoo dhaawac ah oo nool. laakiin arrintan qarinta ah in laba diyaaradood oo kale ay burburtay oo sawiradan aad arkaysaan weliba matooradii diyaaradaha halkaasi ay ka muuqdaan. dowladda Iiraanna ay sidoo kale leedahay diyaaradahan innaga ayaa gacanteena ku soo ridnay ayaa waxay tahay midda kale oo sida aadka ah loola yaaban yahay. dowladda Iiraan waxa ay sheegaysaa in diyaaradahan iyadu ay burburisay islamarkaana waxa la leeyahay diyaaradan waxay u muuqdaan diyaaradaha la yiraahdo Turboprop qaar waxa la leeyahay Black Hawk helicopteradii ay yihiin. marka dowladda Iiraan waxay leedahay Trump askarigii ay soo badbaadsadeen waa uu sheegaya laakiin sidoo kalena tirada ciidamada kale ee ka dhimatay ee ka dhaawacantay muxuu shacabka Mareykanka uu ugu sheegi waayay. arrintaasi marka waa su'aal taagan oo la leeyahay maxaa kale oo halkaasi ka dhacay. wariyahan ka tirsan Al Jazeera qaybta Englishka ayaa waxa uu leeyahay saraakiil ayaa si toos ah xaaladda u sheegayay maxaa yeelay Mareykanku horay ayuu isugu dayay habeen hore in askarigan uu soo badbaadiyo xilli mugdiga ayay doonayeen in uga faa'iideystaan xilliga maalin caddeed ah ma aysan doonaynin in howlgalkan ay sameeyaan. sidaas darteed ayaa waxa uu leeyahay dagaal faraha looga gubtay ayaa goobta ka dhacay badbaadintan ay ka socotay. sidaas darteed ayaa waxa ay Mareykanku ay doonayeen in askarigaasi gacanta dowladda Iiraan afduub ahaan isaga oo nool amaba meyd ah waxaana sidoo kale haddii goobta dagaal uu ka dhacay laba diyaarad ay ku burburtay ciidamadii saarnaa wararka qaar waxay sheegayaan in diyaarado kale loo diray si ay ciidamadaasi u soo qaadaan. marka goob dagaal uu ka dhacay oo laba diyaarad ay ku burburtay oo Mareykanku uu sheeganayo in iyagu ay burburiyeen laakiin Iiraanna ay leedahay innaga ayaa gantaana la helnay meeshaasi khasaare kale miyuusan ka dhalanaynin. arrintaasina waxay tahay arrimaha su'aalaha oo la isweydiinayo. arrintan goobta ay ka dhacday waxaa la leeyahay waa meel ilaa iyo 50 kilomitir ama 31 maal u jirta magaalada la yiraahdo Isfahan halka diyaaradahan lagu soo riday. marka waxyaabaha kale ee soo kordha waan arki doonaa laakiin Mareykanku waxa uu leeyahay askarigeennii waan soo badbaadsanay isagoo dhaawaca weliba dhaawac halis oo xaaladiisa in la dejiyo ay noqotay ka hor xitaa intii aan diyaaradda lagu soo qaadin. ma jirto wax muuqaal ah oo muujinaya labadii askari kii ay sheegeen jimcihii in Mareykanku uu soo badbaadiyey iyo kan hadda la soo badbaadiyey sawirro ama muuqaal muujinaya iyaga oo nool.
marka maadaama hadda la leeyahay askarigan dhaawac halis ayuu qabaa ma weliba dhaawaciisa laga yaabo inuu u geeriyoodo marka dambe waxay dhihi doonaan askarigaasi waa geeriyooday marka duuliyahaasi waan arki doonaa sidoo kale waxyaabaha kasoo kordha laakiin maraykanku askarigoodii waa soo badbaadsadeen laakiin 2 diyaarad oo kale ayay kasoo tageen laga soo bilaabo jimcihii muddo 48 saac wax ka yar maraykanka 6 diyaaradood ayaa wadanka Iiraan uga maqan xitaa sawiradan waa sawiradii jimcihii diyaaradihii markii u horeeyay baxay ee Black Hawk ee helicopteriska ah oo ku soo laabtay mid kamid ah wadamada qaliijka oo burburkan xoogan uu ka muuqdo weliba afkooda hore marka diyaarad asaas u burburtay ciidankii saarnaa dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray ayaa dowladda Mareykanka ay leedahay marka waan arki doonaa waxyaabaha kale ee ka soo kordha laakiin arrimahaasi ayaa ugu dambeeyay